عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان خيارتيدا ku xiran channelkeeda ganaan official waxaan dilenahay habeen wanaagsan waa habeen khamiis ah alxamdulillah caawa barnaamijka aadin hayno waxaa ka mid ah kow aan diirada ku saari doonaa saddex qaybood qaybta koowaad horta barnaamijkeena dhammaantiisa waxa waaye sportska ayuu ka hadlayaa caawa sportska gobolka Gede ee degmada Loqganaane saddex champions ayaa mid ka mid ah wuxuu ahay ciyaar oo World Cup camal ah oo qaran ah iyo ciyaar oo Premier League ah iyo ciyaar oo ay tahay ciyaar oo qaran ah oo junior saddex ciyaar ayaa meeshan jirto saddex qaran laba qaran iyo hal oo Premier League ah ayaa jirtay tii ugu horeysay qaranka ugu horeeyay oo xaafadda ahayd xaafadda waa beri ayaa iskugu imaadeen isla xaafadda leh haddana soo qaaday waa arin oo macnaha guul ah oo guushaas ay tahay guul usoo hooyatay oo reer waa beri qaasatan waa beri dhalinyarada waa beri usoo hooyatay kulantan waxaan wanaagsan khiyaartiina hawada si tooska noogu daawanaysa meel kasta dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay habeen khamiis ah waaye maasha Allah waxaan sii gudagali doonaa barnaamijkeena aan sii gudagali doonaa ciyaartii hore ahayd balkii qaranka ahayd xaafadda ahayd isla waa beri soo qaaday haddana waxaa ku xigtay Premier League champion camal hadii champion camal iska dhe champion camal ku xigtay isla haddana waa beri soo qaaday waxaa final iskugu imaaday kooxda Young Star ilaa ka socota iyo kooxda waa beri hormuud ayaa soo qaaday maasha Allah haddana waxaa hadda iskugu imaaday ciyaartii juniorka ahayd qaranka xaafadda waxaa haddana iskugu imaaday saddexda koox oo jink yar saddexdaas koox waxa ay ka mid tahay isla waa beri isla xaafadda leh waay waxaan dhahayaa ciyaarta saddexdan koox dhex taala waa ciyaartii guushii saddexaad usoo hooyatay isla waa beri waxaan leeyahay fadlan khiyaaraya haddaad channelkaad ku cusubtihiin fadlan channelkaad ku cusubtaa subscribe-ka like commentiga share fadlan gambeelka fursa barnaamijka aan soo dhigno isla markiiba aad la socotid waxaan sii gudageli rabaa ciyaarteena aan ka hadlayn doono sportska caawa waxaa diirada aad noogu saaran sportska guushii saddexaad usoo hooyatay isla hadday dhex taallaa isla waa beri saddex koox waa beri ah kooxda hadda u dambeyd maanta kormaray juniorka ayaa laga reebay waxaan dhihi karaa isla hadda waxaa koobka uu dhex yaalaa isla waa berida uu dhex yaalaa koobka okay isla waa berida uu dhex yaala waa guul tan hadday qaado haddii ay tan ay qaado isku meeshi waaye waa hal guul waaye guushi way isku mid waxaan dhihi lahay waa beri hambalyo mar koowaad mar labaad mar saddexaad ayaan leeyahay hambalyo caawa barnaamijkayga halkaas ayaan rabaa inaan kasii wado waxaana ka hadli doonaa isla barnaamijkan aan kusii guda jirnaa markaas waxay sii noqonaysaa balyaradii oo waa beri inay sii badanayso guushooda ay noqotay isla guushii saddexaad usoo hooyatay kulli koobka qofkii qaadi doono waa isku midkii horta waxaan leeyahay kooxda hadda intii saddexda koox imaaday iyo kuwaas kulli isku mid waa isla degmaday ka dhasheen saas tahay laakiin saddex league la dhigay qaran ha ahaada championship ha ahaado xaafadan waa beri ayuu usoo hooyday inkastoo ay aniga isku qiimad ay yihiin ilaa ay waa beri waa isla magaaladii aan ku wada dhalanay waaye laakiin anaga waxay noo tahay isdhexgal bulsho ayay noo tahay kuwaan oo isdhexgalayaan balyaradii badanayso degmadii balyarada u badanayso saas tahay guusha aan dhihi lahay usoo hooyatay qaasatan waa beri laakiin guusha waa noo soo wada hooyatay ilaa waa beri meel walba cakaaro meel walba guusha waa noo soo wada hooyatay maxaa yeelay balyaro waxaan helaynaa oo hadhow matali kara qarankii ayuu matalayaa balyarka qaranka markuu matala hadda tusaale waxaa loo baahanayaa balyaro oo u baxa degmada isku markii waa la helaa bismillah waxaa leeyahay hebel joog
hebelaa jooga oo junior ka soo baxay oo fudud oo habkiisa oo aad u fudud yahay difaaciisa baalkiisa weerarka noobaha ayaa laleeyahy waa guul noo soo wada hoyatay inkastoo aan ugu baaqaya hadda liiga waa beri u imaado ilaa hadduu xagga u taga laba dhinac isku mid ay tahay ay walaalihiina iyagana kolley waa dad walaalihiina ah isla degmada aan ku dhalanay isku mid ay waa noo wada yihiin inkastoo ay waa beri usoo hoyatay haddana barnaamijkayga waxaan leeyahay sportska degmada luuq waxaan leeyahay hor haloo sii wado sportska haddii lasii wado waxyaalo fara badanaa dhalanaya xataa xeer waxaa la gaaraa degmooyinka lagu qaban doono halkan mida kalena waxaan ugu baaqayaa guddiga sportska degmada luuqganaane inay bedelaan barnaamijkan oo bishiiba hal guddoomiye la dooranayo saas maahan guddoomiye fiican hala saaro guddoomiyihii ha noqdo guddoomiye oo cimri ah ha noqdo oo sidii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle camal cimri ha ahaada maogi waxaan oo sida baraajiga camal la bedelaa halaska dhaafo qofkii loo dhiibo in wax loo saxa maogi waxaan ka bedelitaanka dhan ha laga dhaafo asxaabteyda dhammaan akhyaarteyda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku xiran channelkayga ganaan official wallaahi akhyaarteyda aan aadka u jeclahay qadarinta iyo qiimaha iyo wanaagga iyo sharafta iga mudan caawa aniga barnaamijkayga wuxuu ku aadanay sportska guushii usoo hoyatay reer waaberi waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay kooxyaalka kalena waxaan leeyahay iyagana isla guushi waa haysatiin walaalihiina haaya idinkama dheero aniga oo aan haddana aan sii gudagelaya sheekadii hadda aan watay isla sportska aan sii gudagelaya waxaan uga baaqayaa sportska guddiga maamulinta kulli ku-xigeenka ku-simiyaalka dhammaan inta sportska wado oo ku xiriirta waxaan leeyahay sportskan hala sii wado yaana la noqonin dad hoos wax u dhacay yaa la noqonin waxaan cawa hambaliyo weyn aan usoo jeedinayaa reer waaberi oo usoo hoyata guushooda saddexda waaberi ay imaaday saddex naadi oo waaberi aa iskugu imaaday guushii labaad waxay ahayd tii young star ay kasoo qaadeen hormuud haddana champion league ay kasoo qaadeen hambalyadii saddexaad waxaa waaye tii qaranka isla waaberi isku joogaan haddana isla waaberi koobka la keenay waa saddex guul aad u weyn maasha allah aan leeyahay walaalihiina kalena ayagana isku mid ayay noo yihiin kal ilaab inkasta ani isku mid ay yihiin waxba iima kala socno kuwaasna waa walaalihey kuwana waa walaalihey laakiin isla xaafadan ayaan ku dhashay laakiin waa ii sameeyiin hadda aniga dhexdoodaan taaganahay nina inaan ma raaci kari maxaa yeele waan u dhexeeyaa dhexdooda waxaan leeyahay sportska hor ha loo sii wado wallaahi khaasatan markii ay noqoto waxyaalo fara badan waxaa la helaa bareero aad u fiican asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta aadkii aad noogu badan waxaa idin leeyahay kulanto wacan oo wanaagsan waxaan halkan aan kusoo afmeerayaa barnaamijkayga sportska uu ka hadlaya aan u hambalyeynayay waaberi aan u hambalyeynayay mar kale guddiga soo qaban qaabiyey juniorka haddana waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sportska hor ha loo soo wado guddiga gacanaan u taagi